بسم الله الرحمن الرحيم ولا مقطع كان جابان شنت دقيقة سعنية waxaan kugu soo gudbinayaa insha Allah shan arrimood oo sababi karta inaad janno gashid sidoo kale shan arrimood oo sababi karta inaad gashid naar haddaba fadlan haddii uu maqdaca kan ku soo gaaro yuusan noqon maqdaca kan mid agtaada ku hara ee la wadaago laalada khayrka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay addaalu ala alkhayri ka faa'ilihi ruuxa dadka khayrka tusaa wuxuu la mid yahay kan sameeyay oo kale haddaan ku horeyno shanta arrimood oo sababi karta inaad jannada gashid waxaa ugu horeeya number 1 ah al-khawfu min maqaami Illaahi azza wa jalla inaad la kulanka Alle aad ka cabsatid Alle subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waliman khaafa maqaama rabbih jannatan ruuxii ka baqa la kulanka Ilaahay waxa u sugnaatay laba janno labo kafaalatu al-aytaam agoonta inaad ka kafaala qaadid nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan inuu yiri ana wa kaafirul yatiimi fil jannati kahatayni aniga iyo ruuxa agoonka ka kafaala qaada jannada waxaan ku nahay sida tan oo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu xiriiriyay labadii safarood farta dheer iyo farta kale ku xigta ayuu xiriiriyay bimaana halka wuxuu ku tilmaamay nabiga alayhi salatu wasalaam inay aad isugu dhow yihiin raantii ilmaha kan aabahood qabriga galay Alle subhanahu wa ta'ala ku afsaday wuxuu baahan yahay daryeel iyo naxid fara badan ayuu u baahan yahay qodobka saddexaad waxa weeye taacatul waalidayn labada waalid inaad adeecid gaar ahaan hooyada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilzam qadamayha fa thamma aljanna adamadeeda laazim halka ay jannada ku jirtay xadiis kale wuxuu ku leeyahay markii nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam an haqqu an-nas bi husni sahabati wuxuu yiri ummuk thumma abuk afar al-iktharu min dhikrillah dhikriga ilaahay inaad badsatid nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sabaqa al-mufriduna waxaa dheereeyay dadka mufridiinta ah waxaa la yiri rasuulka ilaahayow wama al-mufridun mufriduntu waa kuma wuxuu yiri adh-dhakiruna allaha kathiran wadh-dhakirat raga inta badan ilaahay xusa ee gabdhaha inta badan ilaahay xusa weey qodobka shanaad waxa weeyaan rak'ataal wudu labada rak'ay weysada nabiga sallallahu alayhi wasallam jannada ayuu galay markaas wuxuu maqlay kaba sanqadhooda markaas waxa lagu yiri waa bilaal nabiga alayhi salatu wasalaam bilaal ayuu weydiiyay an arja amalin amalahu fil islam amalka ugu rajada badan ee islaamka dhexdiisa uu qabtay wuxuu yiri rasuulka ilaahayow la a'lamu shay'an akthara min annani ma tawadda'tu wudu'an illa sallaytu ba'dahu ma sha Allah an usalli rasuulka ilaahayow ma garanay amal aan kaga raja badanahay islaamka dhexdiisa aan qabtay illa aniga inaan weysaysto mooyee ma weysaysto illa hadii aan weysaysto laba rakcadood ayaa ka dambeysiyay qodobka lixaad waxa weeye ifshaa'u salaam salaanta oo la faafiyo silatul arham qodobka toddobaad waxa weeye alwafaa'u bil uhud wa sidq bil hadith ballakin la oofiyo qodobka sideedaadna qiraa'atu ayatul kursi weeye qodobka sagaalaad waa mariidka in la booqdo qodobka tobanaad ee ugu dambeeya waa nin gabadha inankeeda raali gareysa halka waxaan kaga baxnay shantii shay ee sababi kartay jannada waxaan galinaa shan shay oo sababi karta naarta inaad gashid kibrika ugu horeey nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri jannada ma galayo ruuxa qalbigiisa uu ku jiro misqaala dharratin min kibri misqaala dharra in la eego kibra jannada ma galayo ninku qalbigiisa ku jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam qodobka labaad ee sababi kara ruuxa inuu naar galo waxa kamid ah dulmiga ay gardarada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laba sinf waa marka wali maan arag aqwaamun ma'ahum siyatun ka'adnab al-baqari yadribuna an-nasa yanisawun kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun 'alayhinna ka'asnamati al-bukhti la yadkhuluna al-jannata wa la yajiduna rihaha qadabka shanaad waxa weeye qaatilu nafsihi kan ugu dambeeya qodobka shanaad waxa weeye qaatilu nafsihi kan nafsidiisa dila ruuxa nafsidiisa dila nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay soo ka warinayo rabbigii Allah wuxuu yiri adoonkayga wuxuu igala degdegay nafsidiisa fa xaramtu alayhi jannada ayaan ka xarimay haddaba shanta shay iska ilaali shanta horena ku dadaal walaal fadlan walaaladaadana khayrka la wadaag Allah ku barakeeye barakallahu fiika wa jazaakallahu khayr